ninkan si ku meel gaar ah ayaan u qarinay magaciisa laakiin Faarax Cali ayaan ugu yeeri doonaa. Faarax ayaa u sheegay dadka in waraabaha lagu daweeyo xanuunada dhimirka. gabar ay ka dhex hadlayaan duulal aan dadka kale u muuqan ayuu ku xuuxinayaa dhurwaagan. in jinka iyo waraabuhu is arkaan deetana uu jinku cabsanayo ayaa ka dhaadhacsan, laakiin dadka qaar ayaa u arka arrimahan quraafaad. Mahad Mustaf wuxuu walaashiis oo xanuunsanaysa ka keenay magaalada Baydhabo. odaygan horta wareysigiis markii oo aan meesha aan joogay gabadhan hooga yar naga xanuunsatay oo saas darteed kadib ana odaygan lambarkii soo raadinay waan soo helnay marka inta imaanay kadib marka waxaan noo sheegay inta boqolaal qof oo kumanaan qof meeshan lagu bogsiyay. waxaa jira caadooyin hore oo sii dabar go'aya, welise qaar dadka ka mid ah ayaa ku dheggan habkii ay awoowayaashood u noolaayeen qarniyo ka hor. tani waa sameecad meel la suray oo lagu naadinayo waraabayaal qayb kale oo ka mida Muqdisho lagu hayo, laakiin sheekadan tii hore waa ka duwan tahay. tani ma ahan daweyn ee waa madadaalin. laba sano jiri hal sano gacantay baan ku barbaarinay ilaa hadda isaga 2 sano jiray laba jir baa ahay oo bahalka waraaba hal sano ana ahay ilaa hadda waa ahay gacantay ku jiraan aniga waa isna qaanaabo saaxiib aan ahaybo. tusaale hadda gacanta meesha ma gelin kartaa arma ku qaniina waa gas anu hadan geliya waa halis سمع هذا runtii waa cabsi aad u weyn. waraabuhu wuxuu ka mid yahay xayawaanka inta badan dad cunka la yiraahdo. waxaad iga sheekaysaa aadan dadku seebay u arkaan baalkan markay daawanayaan waxa yar shabaqa u dhawaadaan gacantana ma dhiibtaan kor baa ka daawadaan inay arkaan bahalkan ayay carruurtu u soo kala yaacayaan. caqabaduse waa in lacag laga rabo. nasiib wanaag markan annagoo duubayna waraabaha ayay yimaadeen. waraaba waliga arkina maanta arkay maxaa dareentay waraabaha markii ark waa cabsaday cabsi ay soo galay needan cabsi ka dareemay hore laakiin waraaba ma u arki jirin maya maanta ku waraysa maanta aan markii ark wadneedan isku dhaxdhacay aan dhan waan yaa ku sheegay laakiin meeshaan waraaba inuu joogo iskoolka joogni xagga waraaba la shisheeyo soo baxaan alla inta imaanay waraaba aragnay aan dhan waa isku naxay aan dhan waa isku dhaxdhacay wiilgay maartay waraaba maanta laakiin waad aragtay miya haye markaad aragto waraaba maxaa dareentay cabsi aad u farbadan wiji afkiisu waa weyn yahay lagu micno dheer oo afka ugu taal labadu gadaal waa gaawanyiin labadu korna waa dheereeyay. dhurwaaga ama waraabaha hadba sida magaciisa loo garan og yahay waa xayawaan dad iyo duunyaba qaad ah oo inta badan aan maribin noqon, halistiisana lagu xakameeyo shabaq bir ah oo la geliyo. yaraanta ayay ku soo ugaarsadaan dadka magaalooyinka ku haysta, waxayna noo sheegeen mararka qaar haddii uu fakado in waxyeello ka imaan karto.